بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada asxaabta sharafta leh meel kastoo aad joogtaan. Waxaan ku guda jirnaa casharadeenii koorsadii bilowga ahayd ee luqadda Ingiriiska. Maantana waxaanu qaadanaynaa markaasi mowduuc muhiim ah oo markaasi ku saabsan waxaa la yiraahdo demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns magacyada tilmaamayaasha. Demonstrative pronouns magacyada tilmaamayaasha. Okay, sana loo akhrinayo kan demonstrative. Okay, demonstrative saasa loo akhrinayo. Demonstrative pronouns magacyada tilmaamayaasha. Magacyadan aad iyo aad ay markaasi muhiim u yihiin. Waan markaasi afartan oo markaasi kala ah this, can, that, kaas, these, kuwan, those, kuwaas. This waxaa lagu tilmaamaa wax ku dhow oo ah kan. Okay, this kan. That-na wax kaa fog, that kaas. These-na wax badan oo ku dhow, these kuwan. Those-na wax badan oo kaa fog, those kuwaas. Faafahinta waynu arki doonaa. This macnaheedu waxaa weeye kan. This macnaheedu waa maxay? This macnaheedu waa kan. Okay, that macnaheedu waa kaas. This wax ku dhow kan. That-na waa wax kaa fog, kaas. Okay, marka labadan oo this iyo markaasi that labadoodu waxay wadaagaan waxaa weeye waa mufrad, waa kali. Waxay tilmaamaan wax kali ah. wax kali ay tilmaamaan. Hadday noqoto shay, qof ama xayawaan, wax kali ah ay tilmaamaan. Okay, waa singular, kali. wax kali ay tilmaamaan. Singular waa maxay? Kali. Okay, waxaana mar walba la raaciyaa is. Okay, istaas ayaa mar walba la raaciyaa oo la socota. Okay, examples tusaalayaasha waa kana. This kani is waa a pen, qalin. Okay, this kani waa, this kani is waa a pen, qalin. Markaysa kan waa wax ku dhow. Okay, kan waa wax ku dhow. This kani is waa a cat, mukulaal. This tani is waa a cat, mukulaal. Okay, waxaa ku tilmaami kartaa this wax ku dhow oo kali ah. Waxaas waxay noqon karaan lab ama dhadig, shay ama qof, waxay doonaan ma noqdaan. Okay, that-na maxaa ku tilmaamaysaa wax kali ah oo kaa fog. Markaad dhahayso kaas. Okay, that is kaasi waa a car, gaari. That is kaasi waa, that kaasi is waa a car, gaari. That is kaasi waa a horse, faras. That is kaasi waa a car, gaari. That is kaasi waa a horse, faras. Marka that waa maxay? waa wax kaa fog, waa kaas dhahayso. waxayna mar kasta qaadataa is ayaa la socota. Okay, ayaa la raacsiya. waxaa imaanaynaa qaybtan oo ah these, oo ah macnaheedu kuwaan. Okay, these waa maxay? waa kuwaan. wax badan oo ku dhow, laba iyo wixii ka badan. Okay, these kuwaan. Those-na waa wax badan oo markaasi kaa fog. Okay, wax badan oo kaa fog, laba iyo wixii ka badan. Those kuwaan. Those waa maxay? kuwaas. Those kuwaas. These-na kuwaan. These waa maxay? waa kuwaan. Okay, those-na kuwaas. labadan marka waxyaabaha wadaagaan waxaa ka mid ah inay yihiin plural, jamac inay yihiin. waa jamac. laba iyo wax ka badan ayaa lagu tilmaamaa. Okay, hal these lama dhihi karo, hal those lama dhihi karo. laba iyo wix ka badan ayaa these iyo those loo adeegsan karaa. These waa wax kuu dhow oo badan, those-na waa wax kaa fog oo badan. Okay, mar walbana waxaa raacda r ayaa raacda. halkii this iyo that ay ka raacaysa is, labadan waxaa raacda r ayaa raacda. Examples ka fiirwan. These are, kuwaani waa pens, qalimaan. Okay, okay, these are, kuwaani waa pens, qalimaan, qalimo. These are, kuwaani, these kuwaani are waa pens, qalimo. These kuwaani are waa cars, baabuur. Okay, these marka maxaa lagu tilmaamaa wax badan oo ku dhow. Okay, wax badan oo ku dhow. Those-na wax badan oo kaa fog. Those waa maxay? kuwaas. Those kuwaas are waa cats, mukulaalo ama musimo. Those kuwaasi are waa cats, mukulaalo ama musimo. Those kuwaasi are waa
horses fardo. Those kuwaasi waa horses fardo. marka maxaa nidhi khulaasatul kalaam maxaa nidhi this maxaa loo adeegsadaa waxaa loo adeegsadaa wax ku dhow oo ah kan okay kan okay kan okay daal maxaa loo adeegsadaa wax kaa fog oo kali ah kaas okay kaas okay labadu waxyaaba iskaga mid yihiin waa maxay waa singular singular maxaa waa mufrad okay waa singular labadu waxay iskaga mid yihiin waa mufrad waxay iskaga mid yihiin mufrad mar haddii waxay qaataan is labadu maxay qaataan is that is that is okay wax kale ayayna tilmaamay diisna waa maxay diisna waa wax badan oo kuu dhow dowsna waa wax badan oo kaa fog okay labadu waa maxay plural waa jamac wax jamaca loo adeegsado okay maxay qaataan are labadu waxay qaataan are these are one those are twice marka afartaas ayaa waxaa la yidhaahdaa afartan oo this that these those ayaa waxaa la yidhahdaa magacyaalada tilmaamayaasha lagu tilmaamo wax kuu dhow iyo wax kaa fog waa lagu tilmaamo wax jamac ah iyo wax mufrad ah waa lagu tilmaama okay this wax kuu dhow oo hal ah this kan that wax kuu dhow wax kaa fog oo mufrad ah that these wax kuu dhow oo badan these one those wax badan oo kaa fog those one marka intaan ayaan kusoo gabagabeynaynaa casharkeenii oo maanta aynu kusoo qaadanay waxaa la yidhahda demonstrative pronouns magacyaalada tilmaamayaasha oo kala ahaa this that those these waxaan filayaa in aad kala fahamteen isla markaasna exerciska casharkan ku xigi doono aad si waadaxa ugu shaqeyn doontaan inta casharka xiga aynu iskugu soo laaban doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ardayay aqoontu waa sidii ilays waa sida aroortiyo ogta waa barkee ardayay aqoontu waa sidii ilays waa sida aroortiyo ogta waa barkee